xilligan hadda la joogaa inaad lacag ka samaysay internetka waa arrin aad u sahlan marka la eego sida fudud ee aad ku bilaabi kartid. maxaa yeelay si aad lacag ugu samaysid aaladda internetka waxaad u baahan tahay oo keliya kombiyuutar ama telefoon iyo internet. kadibna adigoo gurigaaga jooga oo aan wax dhaqaalaha bixin bilowga ayaad ku heli kartaa 10 waddo oo kala duwan oo aad dhaqaale ugu samayn kartid internetka. haddaba muuqaalkeena ayaan rabaa inaan kula wadaago 4 waddo oo kala duwan oo aad lacag ugu samayn kartid internetka. magacaygu waa Diino Xuseen Shacab, halkani waa kanalka iftiinka. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Google AdSense. haddii aad tahay qof jecel qoraalka, mid ka mid ah waddooyinka ugu sahlan ee dhaqaale ugu samayn kartid internetka waa inaad samaysatid website, kadibna aad ku xirtid websitekaasi xayeysiisyada Google AdSense. kadibna qof kastoo soo booqda mareegtaada waxaa u soo baxaya xayeysiisyo ay soo gelisay Google AdSense. xayeysiisyadan lacagta kaa soo xaroota ayaad adiguna qayb ku yeelanaysaa, waxayna lacagta aad shaqaysatid akoonkaaga bangiga kugu soo dirayaan bil kasta 24-keeda. inaad ku xirtid websitekaada Google AdSense ma ahan arrin adag, balse waxaad u baahan tahay in websitekaagu yahay website jiray dhowr bilood, sidoo kalena uu leeyahay akhristayaal akhriyay qormooyinka aad soo dhigtay ka hor intaadan ku xirin Google AdSense. kadibna waxay ku siinayaan kood aad ku diyaarisid websitekaaga si ay kugu oggolaadaan inaad xayeysiisyadan soo gelisid mareegtaada. YouTube iyo Facebook. mid ka mid ah waddooyinka ugu fudud ee aad dhaqaale ugu samayn kartid internetka waa inaad samaysatid channel YouTube, kadibna aad ku soo gudbisid mowduuc iyo barnaamijyo aad jeceshahay inaad dadka la wadaagtid. bilowga hore way adag tahay inaad guul ka gaartid, oo ugu yaraan waxaad u baahan tahay 6 bilood oo joogto ah inaad muuqaal soo gelisid kanaalkaaga si aad natiijo macquul ah ugu aragtid. laakiin markastoo aad joogtaysid tayada waxaa soo gudbinaysidna ay noqoto mid sareysa, waa markasta oo aad guul fiican ka gaartid, sidoo kalena aad dhaqaale aad u badan kaga samaysid. sidoo kale Facebook ayaa ah mid ka mid ah ilaha ugu badan ee aad dhaqaale kaga samayn kartid, maadaama uu yahay barta bulsho ee ugu adeegsiga badan Soomaalida. isla muuqaaladana aad soo dhigtid janaalkaaga YouTube ayaa soo gelin kartaa Facebook. Merch by Amazon. haddii aad aqoon fiican u leedahay adeegsiga Photoshop ama barnaamijyada wax lagu nashqadeeyo, Merch by Amazon waa website awood ku siinayo inaad ku nashqadaysid funaanadaha, kadibna aad ku iibisid websiteka caanka ah ee Amazon, oo ah websiteka ugu weyn ee qaab online ah wax lagu iibiyo. si aad u samaysad akoon aad nashqadaha ku soo gudbisid, waxaad u baahan tahay inaad marka hore iska diiwaan gelisid, kadibna aad sugtid inta ay Amazon soo aqbalayso xubinimadaada. badanaana way adag tahay inay hore ka aqbalaan xubnaha cusub. Fiverr, Upwork, Freelancer. hadda aniga idinla hadlayaa waxaan ahay freelancer. haddii aad leedahay xirfad sida muuqaal samaynta iyo hagaajinta sawirada, ama aad taqaanid luuqadaha, waxaad wax ku turjumi kartaa luuqadaada afka Soomaaliga. xirfadahan waxaad lacag ugu samayn kartaa websiteyada kale ah Fiverr, Upwork iyo Freelancer. kaliya waxaad u baahan tahay inaad akoon ka samaysatid, kadibna aad soo bandhigtid xirfadaha aad leedahay, waxaadna ku iibin kartaa laga bilaabo $5 ilaa $2,000.